shirkadda isgaarsiinta ee Somtel ee Somaliland ayaa baryahanba waxa ay waday barnaamij waqtiyan nasiiba oo la magac baxay hadal oo hel waxana barnaamijkaasi lagu helayay baabuur iyo lacag kala duwan waxana bishan oo bisha 12aad saddexdeedii markii ugu horeysay ku guuleystay gobolkan Awdal 1 milyan oo shilinka Somaliland Farxaan Yuusuf oo telefoon nambarkiisu yahay waa Somtel 9287954 waxana munaasabadii guddoonsiinta lacagtaasi 1 milyan ee uu ku helay barnaamijkaasi hadal oo hel ka hadlay maareeyaha shirkadda Somtel ee gobolkan Awdal Abdiqani Ali Xasan Ibrahim waxana uu ka waramay ujeedada barnaamijkaasi loogu talagalay iyo inuu qof walba nasiibkiisa ka qaado استعمالك واستعمالي سمكات Somtel أو شركات يستحل مليون أو سلالة شلة هذه البلد محصنت هاي صرف عن الاستعمال مركز صراحة كبيرة كمية مع الشيء هنا يعيشنا الأيام استعمالك هاي بريان سيب الاستعمال هل كمية باوتر حال هذه الشيء مع الشيء اللي قاعد هو مع الشيء اللي يسوي تشوي نوع كذا يسوي قاعد باوت وكانوا حنقولين إلى استعمالك السيو ذا المشروطية سير يستاهل تنجيل أو المنظر البحرية يوم باوت هذه الناس طبعا مع الشيء اللي يستوي تنوع وشباب Somtel إنه واحد كفاية مركز تاي في عرسه شعب كي هذه النوع مهنقية بس حقيقة في قرن sidoo kale waxa isaguna halkaas ka hadlay Farxaan Yuusuf oo ku faraxsanaa lacagta 1 milyan ee uu ku guuleystay ee nasiibkiisu siiyay aniga uga mahadcelinayo maamulka gobolka Awdal iyo maamulka shirkadda Somtel waliba waxaan leeyahay jaaniskan dhalinyaro ka faa'iideystay waana markii ugu horeysay ee barnaamijkan Somtel ay bilowdo bishan 12aad uu ku guuleysto 1 milyan Farxaan Yuusuf waa caafi TV-ga qaranka Somaliland Boorama